fiid wanaagsan dhegeystayaal qodobada wararka risaala caawa idiin diyaarisay waxaa ka mid ah booliiska Soomaaliya oo xabsiga dhigay askari ka tirsan taraafikada oo laaluush ka qaatay nin watay gaari gudoomiyihii dhalinyarada degmada Hodan oo lagu dhex dilay masaajid ku yaala degmadaasi dowladda Soomaaliya oo sheegtay in wadamada qaar ay ku colaadiyeen go'aankii dhexdhexaadnimada ay ka qaadatay khilaafka wadamada Khaliijka faahfaahin ka soo baxaysa al-shabaab oo weeraray ciidamada Itoobiya oo maray deegaano ka tirsan gobolka Bay koonfur galbeed oo sheegtay awood inay ku soo furanayso dad ay afduubteen al-shabaab madaxweyne farmaajo oo kulan gaar ah la yeeshay madaxweyne ku-xigeenka Puntland boqolaal ruux oo ka qayb galay muxaadaro galabta uu Sheekh Kenyaawi ku qabtay Stadio Konis Muqdisho ciidanka booliiska dalka Kenya oo shaaciyay magacyada raggii fuliyay weerarkii Nairobi iyo qaxootiga dalka Itoobiya ku nool oo helay xuquuq la mid ah midda muwaadiniinta dalkaasi warshada isbuunyada Shaakir tayo iyo taabagal weeye waa habeenimo jimca ay sii baxayso sabtina uu soo galayo taariikhduna ay ku beegan tahay 18 bisha koowaad sanadkan 2019 intaas aad maqasheen dhageystayaal waxay ahaayeen qodobadii wararka risaale ay idiin diyaarisay imikana ku soo dhawaada warkii fiidnimo oo intaasi ka faahfaahsan booliiska Soomaaliya ayaa xabsiga dhigay askari ka tirsanaa ciidamada taraafikada ee kala hagista gaadiidka qaabilsan kaasi oo isaga oo laaluush qaadanaya laga duubay muuqaal kadibna lagu faafiyay baraha bulshada askariga booliiska ka tirsan qaybta taraafikada ama kala hagista gaadiidka wadooyinka ayaa lagu magacaabaa Cabdi Cabdulle Xasan waxaana laga duubay muuqaal video qarsoodi ah oo muujinaya in ciidanka taraafikada ay qaataan laaluush ku aadan xilliyada ay taagan yihiin wadooyinka Muqdisho ee gaadiidka shacabka ay kala hagayaan taasoo ah mas'uuliyad ka saaran isla markaana dawladdu ay mushaar ku siiso askarigan ka tirsan ciidamada loo yaqaano taraafikada ee kala hagista wadooyinka ee gaadiidka oo lagu magacaabo Cabdi Cabdulle Xasan ayaa lagu xiray qaybta baarista dambiyada CID-da halkaasi oo uu hadda ku xiran yahay sida uu sheegay afayeenka ciidanka booliiska Soomaaliya Qaasim Axmed Rooble Cabdi Cabdulle Xasan ayaa muuqaalka laga duubay waxa ay ku wada murmayaan ninka wada gaariga oo uu ka qaaday liisanka isla markaana uu weydiinayo buugga gaariga balse ninka uu ku doodayo buugga inuusan haysan waxaana sheekada dooda ahayd ee laaluush qaadashada muujinaysay ay u dhacday sida tan أنا بوك ما يستا بوك ما يستا بوك يسوي لا ضرب ساو كذا أنت كمان رخصت طبعا دور العقد ما هاي طبعا حلال مرتبط حرارة بس خلاص كذا تجينا مو كذا باور لما ورد كان باور عمل سوق أو حديم أو راع أما سحبوا على بوك إلى ذات تغني والنيو سايق سبيران ولا مقر يا أخي نيو كل عشرة لما دورنا كوسية خدام كوسية شرفنا كوسية يسوي موبايل بوك يسوي لا تتغني نيو كل عشرة يا أخي نيو يا والله هو ريدو بالله غادر بوجي يسي marka day celiis marka waa ida xisho yaa khana kala xishona yaa khana duwa wana yaa dambi baa ay gashay baawurka hadda dad ku dili lahaa waxa dhila wax kale maal qabiil balaa maal ahayd diriis kan ma qabtaan mad baawurka ku gaarsiinaa samowi xagaas ka dhigay ha naxu waa yaraysi yaa khani saxaba hada maxay gartaa isii waxa shanna haystaftiyo horta isii xalaal ma timaadi xaraan tarba war ilaahay ka baqiyaa adiga ii tur la xaraan markii doodaasi ay dhaxmartay ninka gaariga watay iyo askariga taraafikada ka tirsan ee muuqaal ahaan looga duubay kadibna baraha bulshada lagu baahiyay shalay barqadii ayaa muuqaalkii waxa uu yeeshay falcelin ku aadan in taliyaha booliiska ciidanka Soomaaliya General Bashir America oo amar degdeg ah ku bixiyo in la soo xiro askarigaasi maadaama uu sheegay inuu ceebeeyay ciidanka booliiska oo talaabo qaaday ayaa gacanta ku soo dhigay askariga lagu magacaabo Cabdi Cabdulle Xasan oo qaybta taraafikada ka tirsan waxaana maanta lagu xiray xarunta dambi baarista ciidanka booliiska Soomaaliyeed sida uu sharaxayo afayeenka booliiska Qaasim Axmed Rooble ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto waxaan rabaa inaan la wadaagno sida ay baraha bulshada ku arkeen shalay oo ay taariikhdu ahayd 16 bishii koowaad 19 abaaras 5 saac iyo bar subaxnimo ayaa askari lagu magacaabo Cabdi Cabdulle Xasan waxa uu joojiyay
gaari nin shacabihii uu watay wuxuu weydiiyey sharcigii laysinkii iyo buuggii wuxuu helay buuggii markii uu weydiiyey buuggii ayuu helay wuxuu yidhi laysinkii ma hayo laysinkii ma hayo mar allaala markii uu yidhi laysinkii ma hayo mar allaala markii uu yidhi wuxuu weydiistay lacag laaluusha lacagtii laaluushka ahayd waa uu qaatay taliyaha ciidanka booliisku wax kastoo magaalada xamar ka dhaca daqiiqado gudahood ayuu ogaadaa mar allaala markii uu ogaaday wuxuu amar ku bixiyey in askarigaas la qabto lana xidho waxaan rabaa marka inaan idinla wadaago askarigaasi wuxuu ku xidhan yahay qaybta dembiyada CID ayuu ku xidhan yahay waana la gudbin doonaa sida taliyaha ciidanku uu amar ku bixiyey arrintan ayaa muujinaysa in dowladda federaalka Soomaaliya ay si weyn isha ugu hayso dhaqdhaqaaqyada baraha bulshada oo noqday meel saameyn weyn ku yeelata dowladda maadaama 2 toddobaad ka hor sarkaal ka tirsan ciidanka booliiska oo jir dilay xaaskiisii hore muuqaal toos ah oo laga duubay uu sababay in sarkaalkaasi xabsiga la dhigo sidoo kalena maantay ayay dowladdu mar kale sheegtay askari ka tirsan qaybta booliiska ee kala hagista gaadiidka wadooyinka taraafikada in isagana xabsiga la dhigay kadib markii muuqaal laga duubay baraha bulshada lagu faafiyay isaga oo qaadanaya lacag laaluusha dowladda madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa si weyn loogu xantaa in dhaqdhaqaaqeeda ugu weyn uu ka dhex socdo baraha bulshada madaxduna ay isha ku hayaan allaha u naxariistay kooxaha hubeysan ayaa maantay salaadii duhurka markii laga soo baxay kadib waxa ay masaajid ku yaala degmada Hodan ku dhex dileen gudoomiyihii dhalinyarada degmadaasi marxuumka oo lagu magacaabo Xuseen Hadaafow ayaa dhaawac ahaan looga qaaday masaajidka Abgaalow ee ku yaala xaafadda Siigaale ee degmada Hodan halkaasi oo salaadii duhurka ee khudbada uu ku dukaday marxuumka ayaa la sheegay inuu ku geeriyooday cisbitaalka Digfeer oo dhaawac ahaan loo geeyay maadaama rasaastii dableyda hubeysan ay ku fureen madaxa ay kaga dhacday kooxda hubeysan ee marxuumkaasi dishay ayaa ka baxsaday goobtii ay ku dileen iyadoo mar dambe dhaawac ahaan Xuseen Hadaafow gudoomiyihii dhalinyarada degmada Hodan goobtaasi looga qaaday waxaa sii kordhaya falalka dadka loogu dhex beegsanayo masaajidada gudahood oo ah beydka Allah isla markaana dadku ay ku nabadgeli jireen xilliyadii hore balse waayadan dambe ayaa Muqdisho iyo gobolada dalka qaarkood waxaa caado ka noqotay oo dadku si caadi ah ula qabsadeen dhaqanka ah in qof masjid ka soo baxay ama soo dukaday salaada eebe lagu dilo ama lagu hordhaawaco masaajidka hortiisa taasi oo si weyn dadku ay ula yaaban yihiin in falkan uu ka noqday Muqdisho ee qaar ka mid ah gobolada dalka mid joogto ah ilaa hadda ma jirto cid sheegatay mas'uuliyadda dilka loo geystay gudoomiyihii dhalinyarada degmada Hodan Xuseen Hadaafow dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in wadamada qaar ay ku colaadiyeen go'aankii dhexdhexaadnimada ay ka qaadatay xilligii uu taagnaa khilaafka wadamada khaliijka Rijaal Cabdi Maxamed ayaa macluumaadka warkan haya wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Soomaaliya Dinjire Axmed Ciise Cawad ayaa sheegay in xukuumadda Soomaaliya ay dhibaatooyin badan ay kala kulantay go'aankii ay ka qaadatay khilaafkii soo kala dhaxgalay dalalka khaliijka Carabta oo ay ugu horeeyaan dawladda Sacuudi Arabiya Imaaraadka Carabta iyo waliba dawladda Qatar ujeedka ugu weyn ayuu sheegay in dawladda Soomaaliya ay ka lahayd inaysan cidna taageerin laakiin ay bilowdo dhexdhexaadinta dalalkaas maadaama dawladda Soomaaliya ay ka mid tahay dalalka jaamacadda Carabta laakiin dalalka qaarkood ay go'aansadeen in Soomaaliya ay ku colaadiyaan go'aanka ay qaadatay Axmed Ciise Cawad wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa sheegay in mas'uuliyiinta ugu sarreeya dalka ay sameeyeen dadaalo kala duwan oo lagu soo afjarayo arrintaas isla markaana madaxweynaha Soomaaliya booqasho uu ku tagay qaar ka mid ah dalalka khilaafka u dhaxeeyay marka qoliyii qaadan waayay inaanu dhexdhexaad nahay culays bayna saareen culayska anagu raalli kama ahayn anagu ma rabin qofna aanu colaad haddana ma rabno awalna ma rabin imaaraad baana rabin inaan la dagaalo iscolaadino sacuudi baana rabin inaan iscolaadino qatar baana rabin inaan iscolaadino
dalalkii dariska colaadu noo dhaxaysay aan rabnaa inaan shiino marka dalal kale to walaalo ah oo na kaalmeyn jiro taariikh sila leenahay annaguna mar kaalmeyn jiray ma rabna inaan colaadna dhex marto laakiin dalalkii ayaa qaarkood dhaqankeedii siyaasadeed wuxuu noqday inay dadka jajoobi karaan waa laga madax adeegay hadda maanta waxay maraysaa inay garowsadeen oo yaynaan weli xabadka isku qaadin oo isaagaraynin laakiin qolo wali way aqoonsatay sacuudiga waad ogtahay inta mar oo madaxweynehenu tegay ra-isul wasaarehenu tegay anigu tegay hadda wasiirka faafinta mar dhaweyd buu ka yimid imaaraadka unbaa wax yar ka dhimanaayeen dalalka kala sasafan iyadiina waa soo daawoobaysaa annagu ma rabno inaan qofna colaadino col la ahaan qof kastana saaxiib la ahaanaan rabna ma dhihin maaragtay nala safta haddii kaleeto waad maaragtay etoobiya nagala safta ama dal kale nagala safta ama nagala safto maaragtay shaydaan kaloo badda ku jira marka iyaguna inay nagala xishoodaan waa inay saasna dhahaan haddaan diidnana inay nagu colaadiyaan maaha dadka soomaaliyada ummadaha kale waxaa la yaaba maraykanka iyo yurub iyo dalalka kaleeto way garowsan yihiin annagay maaha in laydinkula dagaalo inaad dhexdhexaad tihiin dadkii soomaaliyeedna qaaraa waxay dhahayaan maxaa dhexdhexaad loo noqdo ilama habboona codkaas waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya axmed ciise cawad oo ka hadlayay in soomaaliya lagula dagaalamay go-aankii dhexdhexaadnimada ay ka qaadatay xilligii uu taagnaa khilaafkii wadamada khaliijka ururka al-shabaab ayaa sheegtay in 57 askari oo ciidan etoobiyaan ah ay ku dileen weerar dhabagal ahaa ama jidgal ahaa oo ka dhacay duleedka degmada Buurhakaba ee gobolka Bay war ay al-shabaab kusoo qoreen bogga internetka ee wararka ay ku faafiyaan waxay ku sheegeen in weerarkaasi ay ku dileen 57 askari laakiin ma cadda sheegashada ururka al-shabaab ee ah tirada intaas la eg ciidamada etoobiyaanka ay dileen ciidamada Itoobiya ayaa xilliga weerarka jidgalka loo dhigayay waxa ay u socdeen dhanka deegaanka Leego ee gobolka Shabeellaha Hoose waxaana la sheegay in ciidamada loo galay duleedka degmada Buurhakaba xilli halkaasi socod ay ku marayeen ciidanka Itoobiya ayaa inta badan marka ay magaalooyinka gobolada dalka isaga kala gooshayaan waxa ay ku socdaan qaab inventory ah ama qaab lug ah iyadoo gaadiidkuna ay yihiin kuwo si aayar ah wadooyinka u maraya al-shabaab waxay kaloo sheegteen 7 gaari oo nooca xamuulka ah in weerarkaasi ay ku dileen laakiin ma aysan sheegin dhinacooda xitaa hal askari in weerarka looga dilay sida warkooda ay ku faafiyeen dhinaca kale maamulka koonfur galbeed ayaa sheegay in awood ay kusoo furanayaan dad ay al-shabaab afduubteen axmed tifow ayaa warkan sii faahfaahinaya ku dhawaad 100 qof oo al-shabaab ay ka afduubtaan deegaano hoos yimaada degmada Xudur ee gobolka Bakool wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga maamulka koonfur galbeed Soomaaliya cabdirasaaq cali aadan ayaa risaale FM u sheegay in dadkan la afduubtay saacadihii la soo dhaafay kadib markii ay diideen in ay bixiyaan sakawaad ay ka rabeen al-shabaab sida uu yiri dadkan la afduubtay ayuu sheegay wasiirku in al-shabaab qaarkood ay ku eedeeyeen in ay yihiin ergooyinkii soo doortay xildhibaanada baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ma tirada dhabta hadda ma hayno warbixintu ay soo gaartay marka dadkuna dad qiyaasanna ma aha marka dadku meel walba iska socdaan oo ayagoon cidna la tashan bari gadaal dad bulshada shaqadkaas oo dad rayda la qabsaday way ahaayeen dad ciidan ama dawladda ka tirsan midna ma aha dadka shaqadkan awalba afduubay ku haysteen xigay wax ka waayaan waxaan baadan ay ugu magac dareen zakawaadka iyo wax daran haddii ay ka waayaan in ay ka qabsadaan ama afduubtaan ay madax furasho ku daayaan awalba caadi u ahay wax ay hadda bilaabeenna ma aha way laakiin dadkan hadda shabaabka afduubteen maxaa ku maqasheen oo shabaabku ay u sababayeen afduubkooda hadda wax sababa ama cid ayaga dambi ka gashay ma jirto ummadda Soomaaliyeed deegaanka degan hawlahoodii gaarkay wateen awalba waa ay baadi jireen midkay maagaana way xirtay maagaana way dilaan sida aad la socotaan ummadda dhibaato u soo kortay wadankan masiibaha haysata waaye marka dhibaatadaas ka tahay maana wax ficil gaar oo magac gaar leh ma afduubka sideedaba mar walba saacado walba way ku soo gaaraan marba qof ay ku dhagaan qof ay u shakiyaan ay leeyihiin jaajada dawladda u shaqeeyaa tahay inay yiraahdaan ergadii oo xildhibaanadii doortay ka mid tahay
ninba waxbay u saariyaan mid waxbaa lagu balwadan jaala lagugu qabtay ay dhahaan gawaari ay gubaan awalba caadadaas waa ay socotay deegaanadan bakoolna sida aad la socotaba cunaqabataynta ay saareen xataa dameeradii oo gaari dameeradii inay gubaan dadkii la socdana ay dilaan weligeeday wadeen qaab noocaasaan ku maqal hadalka wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdirasaaq cali aadan ayaa kusoo aadaya xilli taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed qeybtooda ku sugan koonfur galbeed soomaaliya ay ku dhawaaqeen howlgal ay ku doonayaan furashada dadkaas oo ay sheegeen al-shabaab ay deegaano fog ay u kaxaysteen. ugu dambeynna baarlamaanka dalka Itoobiya ayaa ansixiyay hindisa sharciyeed u ogolaanaya qaxootiga ku nool dalkaasi inay helaan xuquuq dheeri ah. waxyaabaha ku xusan hindisa sharciyeedka ayaa waxaa ka mid ah in dadka qaxootiga ee ku nool xeryaha qaxootiga inay xaq u leeyihiin in dalkaasi laga shaqaaleysiiyo iyo in caruurtoodu ay wax ka bartaan iskuulada dowladda. waxaa kaloo sharcigan uu u sahlayaa ama uu dhigayaa in qaxootigu ay helaan xorriyad ah inay tegi karaan meel kasta oo Itoobiya ka tirsan oo ay ka bixi karaan xeryaha, taasoo loogu furay in dhaqdhaqaaqooda socodka aanu xakamaysnayn. waxaana uu qayb ka yahay sharci albaabada u furaya dhaqdhaqaaqooda iyo in xuquuq ay ku leeyihiin dalka Itoobiya. guud ahaan warkii fiidnimo dhegaystayaal oo si toos ah idinkaga imaanayay idaacadda Risaale ee magaalada Muqdisho waa naga intaa. ciddii warkan u dhaaf waxa ay dib kaga bogan karaan bogga aan internetka ku leenahay ee radio risala.com